ganacsigeeda waxa ay ka bilowday masaabiir. waxa ay noqotay haweeneyda ugu taajirsan dalka Uganda iyo qofka labaad ee Soomaali oo dhan ugu maalqabeensan. ganacsigoodii wuxuu u gaadhay caasimad ilaa iyo heer tuulo. maanta barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa sheekada horumarka ballaadhan ee ay samaysay Aamina Xirsi Mooge. waa gabadh Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka Uganda. ku xidhnoo hoyga xogaha iyo dhiirigelinta ee Hanaqaad Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka subscribe saar, siina share gare oo la wadaag asxaabtaada. mar la weydiiyey qaabka ay ganacsiga ku bilowday, waxa ay tiri ganacsi bay hooyaday lahayd. waxaan ka bilaabay dukaan masaabiirta iyo qalabka dhismaha lagu iibiyo. horumarka aan maanta gaaray hadda ma uusan bilaabmin, wuxuu soo bilowday ilaa maalintii aan 9 sano jir ahaa. maalintii ay 9 sano jir ahayd ilaa maanta oo ay 64 jir tahay, gadaal ma aysan eegin. waxayna isku guntaysay dun kasta si ay u gaadho heerka ugu sarreeya. waxayna beenisay fikrad kasta oo laga qabay guulaha ay dumarku nolosha ka gaadhi karaan. yaa yidhi dumarku heer ma gaadhi karaan, ayay isweydiisay Aamina. waxa ay leedahay dhismaha weyn ee laga dukaansado ee ka mid ah astaamaha muuqda ee ay markiiba ishu qabato ee magaalada Kampala ee Oasis. waxa kale oo ay leedahay guryo waaweyn iyo hoteelo casri ah. balse sheekadeeda halkaas kuma eeka. ganacsigeeda waxa uu ku faafay caasimad ilaa heer tuulo. waxayna tuulada Atiak oo ku taala meel u dhow xuduudda Uganda iyo Suudaanta Koonfureed ka dhisaysa warshad weyn oo ay ku kacayso lacag dhan 120 milyan oo dollarka Mareykanka ah. waxay tiri warshadda sonkorta waxaan ka sameeyay meel tuulo ah. tuulooyinka ayaana wax laga soo saari karaa. waxaanan ka fikirayaa in aan fikrado wanaagsan oo ganacsi la yimaado dalka Uganda. dadkeennana waxaan tusayaa in wax la qabsan karo. marka aad wax samaysid ayaa dadkana wax tari kartaa. asal ahaan waxa ay ku dhalatay dalka Kenya, degmada Bungoma, halkaas oo ay qoyskeeda deganaayeen, ganacsiyana ku lahaayeen ka hor intii aysan u wareegin dalka Uganda. Aamina Xirsi waxa ay aad uga mahad sheeganaysaa dawladda Uganda, waxaana xafiiskeeda u yaala sawir muujinaya iyada iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni. iyada oo arintaas ka hadlaysa waxa ay tiri Uganda waxa ay gacan igu siisay in ay dadka arkaan waxa aan samayn karo. maanta aniga oo gabadh Soomaaliyeed ah, haddii aan Soomaaliya joogi lahaa la iima ogolaadeen waxa halkan iigu qabsoomay. Aamino dumarka Soomaaliyeed waxa ay u haysaa talo wax ku ool ah. haddii aad doonaysid in isbedel dhaco, waa in adiga uu ka bilowdaa marka hore, gaar ahaan haddii aad dumar tahay. Aamina waxa ay sheegtay in shahaadooyin badan iyo bilado ay ku mutaysatay horumarka ay ganacsigeeda ka gaadhay, taas oo ay ka heshay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynihii xilka ugu horeeyay Mwai Kibaki. hooyaday xataa waxa ay heshay abaalmarin ah dadka ugu wanaagsan ganacsiga ee gobolka waqooyi ee Kenya. dadkuna wax waa qabsan karaan, ayay tiri Aamina. Uganda ayaa sidoo kale looga aqoonsan yahay in ay tahay haweeneyda ugu maalqabeensan, iyada oo marar badan si heer sare ah ay u qaabileen madaxda ugu sarreysa ee Uganda iyo sidoo kale Kenya oo ay asal ahaan ka soo jeedo. waa tahay daawadayaal, intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar. tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono barnaamij noocan oo kale ah, waxaanu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.